بسم الله الرحمن الرحيم. سيدا لو wada socotaan waxaa dalka Imaaraadka ku sugan wafdi reer Soomaaliland oo muddo halkan joogay. waftigaasi waxa ay hawl la wadeen shirkadda DP World. waxaa farxad weyn ah in maanta waftigaasi soo gabagabeeyeen wada hadalkii la socday iyaga iyo shirkadda DP World. wada hadalkaas oo ujeedadiisu ahayd in lagu soo dhameystiro wixii xal ahaa ee ka dhimnaa heshiiskii bishii September xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadda DP World wada saxiixdeen. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. maanta oo ay bishu tahay 23kii bishii labaad 2017 waxaynu soo gabagabeynay heshiiskii aynu la gelaynay DP World waxyaabihii yaryaraay ka dhinnaa iyadoo bishii September ee sanadkii hore heshiiska weyn la saxeexay waxyaabihii xaalka ahaa ayaynu maanta saxeexaynaa oo aynu soo gabagabeynay alxamdulillah. bisha March kowdeedana waxaa bilaabmaya inaynu si dhammaystiran dekadda ugu wareejino shirkadda DP World oo uu maamuli doono kambaniga ay Somaliland iyo DP World wada lahaayeen markaa. wixii muddadaas ka dambeeyana waxaa bilaabmaya in la sameeyo assessmentkii iyo qiimayntii dekadda dhismaheeda oo muddo uu soconayo sidii loo samayn lahaa designka iyo assessmentka iyo qiimaynta waxaas oo dhan ayaa bilaabmaya. shaqaalaha weynihii dekadda berberana waxaan ugu hambalyaynayaa in dhammaantoodba ay la wareegtay shirkadda DP World marka laga reebo 45 u soo hadhay Somaliland Ports Authority ama wakaaladda dekadaha Somaliland oo ayagu ku sii hadhi doona dawladda. waxaanay si dhammaystiran u qaateen xuquuqdoodii muddada dheer ay u soo shaqaynayeen qarankan oo iyadana si dhammaystiran wixii ay xaq u yeesheen la siiyey. shaqaalahana si dhammaystiran loo qaatay. waxaan maqlaayay in la leeyahay shaqaale laga tegay, laakiin waxaan halkan ku cadaynayaa sidii heshiisku dhigayay ee ahayd in wixii shaqaale dekadda u shaqayn jiray ee shaqada jooga la qaato si dhammaystiran baana loo qaatay. weliba waxa siyaadaha oo la qaatay 12 qof oo aan shaqaale hore u ahaan jirin laakiin la shaqayn jiray waaxda security-ga oo in badan la soo shaqaynaya si temporary ah ayagana si dhammaystiran baa loola wareegay. arrintaasuna halkaas ay ku dhamaatay. marka shaqaalahana saasaan ugu hambalyaynayaa muruqmaalka dekadda iyo dhammaan shacabweynaha Somaliland waxaan leeyahay hawshaas waxay ku soo gabagabooday si niyad sami iyo faa'iido badan ay ka soo gali doonto qaranka Somaliland mustaqbalka dhow. wuxuunbaa muhiim ah inaynu u diyaar garowno si aynu uga faa'iideysan lahayn markaa mustaqbalka soo socda horumarka badan ee la gaarayo iyo shaqooyinkan istaba joogga ee ku soo kordhaya magaalada Berbera. waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. heshiiskii hordhaca waxay soo qaatay muddo dheer. muddadan dheer waxay soo qaatay in la hubiyo xaqiiqaduna ay tagto in danta ummadda Somaliland ee aan mas-uulka ka nahay aan wakiilka ka ahayn ee halka ku matalaynay aan xaqiijino sidii ay uga heli lahayd faa'iidada ugu badan. maareeyuhu waa kii dhameeyey shaqaalihii iyo wixii hawsha la xidhiidhayay dekadda. bisha kowdeedana haddii aan la yidhaahdo si rasmi ah ay ula wareegi doonto maamulkeeda shirkadda DP World oo ah shirkad caalami oo maamusho dhowr iyo 70 dekadoodu adduunyada isku wareegeeda ka taariikhay ku kala filaqsan oo ay ka mid yihiin dalalka ugu waaweyn adduunka qaarkood ama Ingiriiska ha noqoto ama Ruushka ha noqoto. Afrikana qaar badan haddii aan la ka dhigay ay iyadana maamusho. waxa weyn hawsha ugu badan ee aanu anagu haynay waxay ahayd in aan heshiiskaasi wax inagu qaloocan ka imanin oo aynu hadhowta qoomamayno waana xaqiijinay iyadoo ay looyarada nala joogaan oo imkana ay halkaa fadhiyaan hortayada oo ay gabagabadii hawsha dhammaystireen. marka waxaan oran lahaa weelkii aynu tolanay maantuu diyaar u yahay inaynu ku shubanno wax. nin walow halkii aad ka geli lahayd diyaarso adigoo adeegsanaya wixii aqoon iyo xirfad aad leedahay waana salaamatiin ilaahayna hayna garab qabto.